Hamster Combat marba marka ka dambaysa waxa cadaanaysa xaqiiqada ka dambaysa oo runtii qorshihii ay dhigeen inaanay marnaba ka gudbeyn oo sidoo kale wax kasta ay dadkii u ballan qaadeen ay fulinayaan. Runtii maanta waxa soo dhamaaday season 1 oo runtii muddo dheer socday, maxsuulkiisina ay qof kastaaba uu ku helay mobilkiisa. Waxaan si toos ah u bilaabmay qaybtii ka horeysay season 2 oo magaceeda loo yaqaano Interlude. Runtii taasna waxay chance u tahay qof kasta oo uu dhaafay qaybtii waxa weeyaan season 2 oo aan wax maxsuul helin ama sidoo kale lagaga soo qoray wad qishisay mar dambe iska ilaali. aad baan runtii idin salaamay dhamaantii asxaabta qaaliga ku soo dhawaada barnaamijkeena inta ku guda jirno saaxiibayaal waxaan idin kula wadaagi doonaa qaybta loo gudbay waxay kaga duwan tahay qaybtii hore. Sidoo kale asxaabtii sida wacan u shaqaysatay barnaamijka qaybtiisii hore goorta ay heli doonaan coinskii ay shaqaysteen iyo updates kale oo aan idin wadaagayo. Intaynaan muuqaalkeena u guda gelin waxaan idin codsanayaa asxaabta qaaliga haddaad ku cusub tahay boggaygan Facebook page runtii 200,000 wax yar baa inooga harsan soo follow garee. sidoo kale haddii dhanka YouTube aad igala socotidna subscribe tahay laawin si mar walba fariimaha ay ku soo gaaraan markaan kula soo wadaago. asxaabta qaaliga waxaan idinka codsanayaa muuqaalka inaad la wadaagtaan qof kasta oo xiiseynaya Hamster Combat ama ku jiray ama sidoo kale rabay inuu ku soo biiro, waayo labada kooxoodba waa u faa'iido. Hamster Combat runtii qaybtiisii koobaad ayaa soo dhamaatay. qaybtan oo runtii dadna dadaal fara badan oo xadlaaf ay sameynayeen, xagga qaarna ay birkinta barkadeen, kuwo kale ayaa jira iyaguna aad u dadaalay balse xoogaa qish raaciyay, kuwaasna waa la soo qabtay. Hamster Combat bisada yareedii muuqata bisada caadiya maaha, waxa weeyaan dad fara badan ayay qishka ku soo qabatay oo tiri maad baasin sababta qish ay samaysay. runtii barnaamijkii season 1 uu soo dhamaaday. season kan oo runtii qof kasta exchange-ku ku xidhay ama wallet-ku ku xidhay ay ugu soo dhici doonaan dhammaan wuxuu qofkaasi shaqaystay. macnaha coin-kii lagu talagalay waxa si toos ah ugu heli doontaa wallet-kaaga amaba exchange-kii aad ku xirtay oo runtii aad marba ka eegi doontid muddada ka horeysa walibana 26 bisha. waa la kala duwanaan doonaa sababtoo dadaalkeena ayaa aad u kala duwanaa. dadka qaarna aad ay u dadaalayeen, xagga dadka qaarna aanay dadaal fara badan sameynayn. saas ayaana lagu kala duwanaan doonaa. asxaab kale iyaguna waxaa jira aad u dadaalay balse ayagan leeyahay waa kaxmay waxa idin ku dhacay. sababtuna waxay tahay in laga soo qoray you was cheating, qish ayaad sameynaysay. runtii qishkani waa inaad samaysay waxyaabaan lagu ogolayn ama in adoo challenge-kii ku guda jiro furay kadibna aad baxday YouTube oo kalaas ka soo daawatay kadibna aad ku soo noqotay. taasna cheating ayaa lagu qoray ama qof wax qishaya. waxay ka dhigan tahay for example oo kale adoo imtixaan ka shaqaynaya kadibna aad iska baxday adoon waxa weeyaan imtixaankii ku guda jira waa suuliga iska tagtay kadibna soo noqotay. macalinku wuxuu ku qoray sidii qof wax soo qishay sababtoo lama garan karo waxaad soo qabanaysa markaad imtixaanka ka baxday qolkii imtixaanka. sidaas la mid adoo challenge ku jira haddaad isku daydo in aad baxday kadibna aad soo noqoto waxaa lagu xisaabinaya sidii qof waxa weeyaan wax soo qishayay. marka dambe iska ilaaliya. asxaabtaasna oo ka xumahay insha Allah waxaan rajeynayaa asxaabe in qaybta labaad aad wax fiican ka heli doontaan oo runtii faa'iideedin noqon doonta. qaybtan runtii waxaa loo yaqaanaa Interlude. runtii ma aha season 2 balse laakiin waa qaybtii ka horeysay season 2 oo runtii loogu talagalay in loogu diyaar garoobo season 2. ma sheegin waxyaabaha yacni maxsuul soo bixi doona balse laakiin waxay dhaheen ugu diyaar garoob season 2. runtii qofkii ka faa'iideystana maxsuul fiican inuu helo ayaan rajeynaynaa, inagoo ka tusaale qaadanayna maxsuulkan ka helay season 1. asxaabta qaaliga markaa qaybtan waa Diamond. waxay kaga duwanta qaybtii hore waa shaashada bluega u badan ee Diamond-ka runtii kaararkaas oo kala duwan oo dhan aad arki kartid ayaad waxa weeyaan uga faa'iideysan kartaa. sidoo kale qaybtani haddii qaybtii hore ay ku dhaaftay season 1 ama aad lahayd kabaad faa'iideysan, waxaan rajeynaya insha Allah qaybtan inaad si wacan uga faa'iideysatid oo runtii ay ku noqoto qayb aad asxaab fara badan aad la wadaagtid. sidoo kalena aad isku daydid bal inaad dhibco fiican aad shaqaysatid, bal isku daydid bal inaad very active noqotid si waxa weeyaan barnaamijkan aad wax fiican uga heshid. dhammaan asxaabta qaaliga waxaan u baahanahay bal inaan eegno bal waxa uu kaga duwan yahay season kan kale loo gudbay seasonadii hore. runtii season kan magaciisa waxa loo yaqaanaa Interlude. runtii ma aha season 2 balse laakiin waa seasonkii waxa weeyaan ka horeeyay season 2. runtii asxaabta qaaliga bal aynu eegno wuxuu kaga duwan yahay qaybtan imika loo gudbay season 1.
runtii wuxuu kaga duway marka saa ugu dhuftay hamster combatkaaga wuxuu ku leeyahay season 1 is over waxaa la xisaabin doonaa wixii aad shaqaystay waa lagu soo diri doonaa waxaad ku heli doontaa walletkaad ku xidhatay amaba exchange-kaad ku xidhatay ayaad waxaaga ka heli doontaa inta ka horeysa 16 bisha asxaabtii samaysay cheat-ka iyagu waxba kuma laha hamster combat qaybta runtii magaciisa waxa loo yaqaanaa interlude weeyaan ma aha season 2 balse laakiin waa qaybtii ka horeysay season 2 loogu diyaar garoobayay yacni qofkii imika waqti xaadirka si wacan u shaqaysta ama dadaal fiican sameeya season 2 waxaa rajeynaya inuu maxsuul fiican heli doono okay qaybtana waa diamond waa shaashad bluega saad arkaysid waa madow iyo blue oo ay kaga duwata qaybtii hore waxaa jira kaarar la iibsanayo waxaa ku jira games iyo sidoo kale mini games oo runtii ay ku jari doonto marba inta aad runtii shaqaysatid oo halkan aad ka heli doontid sidoo kale waxaad la wadaagi kartaa oo iyadana qayb ka ah asxaabtaada oo linkiga asxaabtaada inaad la wadaagtay iyaduna waa mid ka mid ah faa'iidooyinka laga heli karo oo ah revealer linka sidoo kale xaggan waxaad ka heli kartaa ood ku arki kartaa dhammaan inaad follow garaysid haddaanad follow ahayn qolooyinkan waxa weeye hamster combat inaad iyagu laftooda ay diamonds aad ku heli kartaan so asxaabta qaaliga dhammaantiin insha allahu tacaala waxaan idila wadaagi doonaa si dheeriya maadaama barnaamijkan yahay barnaamij muhiima wax kastoo kasoo cusboonaaday si kastoo loo qabanayo challengeska gameska la sameynayo iyo waxaasoo dhan si looga faa'iidaysto barnaamijkan hamster combat insha allah waxaan rajeynayaa haddaanad ka faa'iidaysan qaybtii hore hamster combat inaad ka faa'iidaystay qaybtan imika runtii waa mid ka mid ah waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ka faa'iidaystid aad ba mahadsantihiin insha allah khayr badan ayaan idin rajeynayaa